masalada ninku markii uu reer guursanayo wax guud oo qofka nin walboo reer yeelanaya laga doonayana waa jiraan. wax si gaara looga doonayo qofka hal xaas ka badan yeelanayana waa jiraan. si guud waxaa looga baahan yahay dee waa mas-uuliyad qofku wuxuu qaadayo. qofkan dumarkeed ninka uu guursanayana wuxuu qaadayaa mas-uuliyaddeedii adduun iyo aakhira labadaba. adduunkana nolosha deegaankeedii, nolosheedii iyo biilkeedii, caafimaadkeedii intaba wuu qaadayaa. aakhirana diinteedii, alla ka cabsigeedii, hadday barasho tahay, hadday ku dhaqan tahay, mas-uuliyad baa ka saaran. oo ilahi wuxuu yihi quu anfusakum wa ahliikum naaran. nabigu wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. qofka dhammaantiin xil baa idin saaran. qof walbana xilkii saaran buu mas-uul ka yahay. ninka waxaa la yidhaha wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa. gurigiisa reerkii baa jooga, ilmihii baa jooga, xaasas badan baa joogi kara, xaas keliyaa joogi kara. taasi waa si guudoo looga baahan yahay inuu qof u talagalan yahay mas-uuliyadda qofkan ilaalintiisa iyo xuquuqdiisa adduun iyo aakhiraba. ta waa si guud baa looga baahan yahay. midda labaada looga baahan yahay markay laba xaas timaado iyo wixii ka badan waxaa ku soo kordhaya cadaalad xuquuqeed baa ku soo kordhaysa. xuquuqda cadaaladdeedu ama ha noqoto cawabariga, ama ha noqoto nafaqada iyo biilka xaqxadda baahidooda ah, ama ha noqoto dhaqaalaynta iyo waxtarka. macnaha wax kastoo cadaalad ah looga baahan yahay oo isaga awooddiisa iyo karaankiisa ah. mid isaga mas-uuliyaddeedu haddaynan saamayn dhaqankiisa ku yeelanin mas-uuliyaddeeda isaga ma gasho, oo ah qalbigiisu dhanka u yar badan yahay. waata ilaahay ku magacaabo kama tilmaamaya qur-aanka walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiluu kula almayl. aayaddu waxay ka hadlaysaa cadaaladda laga hadlayo waa qalbigiina inay u sinaadaan, laakiin dhaqankiina waa inay u sinaadaan. sida carruurtaad dhashayba mid waa ka jeclaan kartaa, laakiin xuquuqdooda cadaaladda inaad ilaysaan lagaa doonayaa. taasi waa mas-uuliyadda guud ee saaran nin kasta oo hal xaas ka badan yeelanaya inuu cadaalad u sameeyo. hadduu sameeyo dee nabigu wuxuu sheegay aakhare inuu iman doono isagoo labada dhinac dhan u janjeero qallocsan baa aakhare buu iman doonaayo astaanu ah inuusan cadaalad toosan ahayne oo dhan u janjeeray. dabcan dumarka oo guursanaya ilaahay ka baqayana waxaa laga rabaa inay garab ugu noqdaan in uu cadaaladda ilaaliyo, iyaguna ayna ku riixin inuu qaarkood u xagliyo. hadduu isagii dambaaboo dariiqa ka leexdana aakhirka dembiga cuquubadiisa adduunka iyaga way ku soo laabanaysa. alxamdulillah, masalada masayrku ama qiiradu waa masalo fitri oo abuuro ilaahay dadka ku abuuray. way u kala badan tahay say dabeecadahooda u kala duwan yihiin. qaar baa waxaa ku jiray qabow yahay, qaar buu kulul yahay, way kala masayr kulul yihiin. nabiga alayh salaam markii umu salama uu guursanayey ee guurka uu bandhigay way ka cudur daaratay. laba sababood bay sheegatay. waxay tii horta carruur baan leeyahayoo dee carruurtaydu inay ku dhibaan hadduu ad dhibsata ma doonayo. laba qof masayr kulul baan ahay bay tiri. wuxuu carruurtuna waa carruurtaydii, masayrkan ilaahay baan baryayaa inuu kaa qaado. fal ahaan wuu u dhici karaa, dadka qofka ugu khayr badan ee ugu wanaagsan buu ka dhici karaa. nabig alai slam maalin isagoo guriga caaisho jooga baa martiya dad baa u joogay. xaasaskii kaleo deris ahaayeen mid kamida baa weel timir ku jirtay soo dirtay tiri bal martidaa ha loo geeyo. caaisho in xaafadii kale raashin laga soo wareejiyey ka xanaaqday ba hal dharbaaxay ku dhufatay xeeradii lagu waday, way dhacdo way kala jabtay. de timirtu waa boorkaa laga jaftay oo waa la ururiyey. nabigu ma xanaaqin, martidii baad igu sharaf tirtay ma dhihine wuxuu yihi kaarat umukum, hooyadiin waxoogay waya masayrtay. markii subaxii la gaaray ee weelkii la celin lahaa dexeeray iyadu lahayd buu diray oo wuxuu yihi inaaun biinaain wa طacaamun biطacaamin. cunno haddii qofku waxaad gudbana cunna lagu gudaa, weelna de mid baad jebisay ee kaagun baa la qaadani. talateeda waa cadaaladii oo qofkii weelkiisa haddaad jebisa kaaga inuu qaato. laakiin nabigu reactionkiisii ama falcelintiisii
ma ahayn inuu xanaaqay oo qayliyey oo laakiin raggii buu cudur daartay wuxuu yidhi dagaarat umukum hooyadiin waxoogay masayr baa qabto way ka hinaastay marka hinaashu wax fitri oo jira weeye qofka hinaasaysana waxaa la rabaa in hinaasuhu waa nooc cadhada ka mida waa nooc ka mida qofku wuxuu uu tirsaday oo ka xumaaday haddaad carooto ama wax ka xumaato inuu xuduudda sharciga iyo xalaasha ku dhaafiya maaha iyadana xuduudda sharciga iyo xuquuqday leedahay inuusan gudbin baa laga doonaya inay ku dadaasho ninkana waxaa laga doonayaa waxaan waa wax dabiici oo fitriya inuu dulqaadkeeda yeesho weliba marka hore iyo mararka dambe uu kala dhib bataa wax walbana xanuunku markuu horeeya kugu cusub yahay saad kuu dhibiyo markaad la barato inaad la noolaato soo noqdo waa kala laba muddo waxaa looga baahan yahay inuu ninku u dhimriyo inuu u dulqaato hadallo badan ficillo badan waxyaabo badan inuu tixgelin yeesho waxani waa fitri oo waa abuur dabeecadda dadkuna waa kala duwantahay waraa kale masayr kulu yahaye inuu u dulqaato dumarka cusubna waxaa laga doonayaa qofkaa marxalada kacdoonka iyo dulqaadashada ay ku jirtaay inay raalli ka noqdaan oy ka cafiyaan ninka wixii raalligelin ama mararka qaarkood sadburin loogu sameeyo soomaalida masayrtirka ay tiraado oo kaleeto ama wakhtiyo dheeraada inuu la joogo ay noqoto oo kaleeto iyadoo berri waa ku iman kartaa haddii booskaad joogtana waa jeclaan lahayde iyadoo waajib loogu lahayn laakiin wanaagga reeraha dhisnaanshahooda inay kaga qayb qaadato waxyaabo badan oo dabacsanaan iyo fasax badan inay muujisaan laga doonayo bilahi tawfiiq